muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika ayaa si weyn u soo dhaweeyay madaxweynihii shalay lagu doortay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho Mudane Cabdullaahi Maxamed Farmaajo markii lagu dhawaaqay inuu xilka ku guuleystay Mudane Farmaajo ayaa banaanbaxyo aad u balaaran oo lagu soo dhaweynayo xilkaasi wuxuu ka bilaabmay gudaha magaalada Johannesburg gaar ahaan xaafadda Mayfair shacab aad u balaaran ayaa iskugu soo baxay wadooyinka dhexmara xaafadda ay Soomaalidu ka degan tahay magaalada Johannesburg kuwaasi oo ku qeylinayay inay ku faraxsan yihiin madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya loo doortay Mudane Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waa kuwan qaar kamid ah shacabkii Soomaaliyeed ee banaanbaxa ku soo dhaweynayay madaxweynaha Soomaaliya ee shalay lagu doortay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho محمد دغوينا هذا waxaan ku noolahay wadanka Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Johannesburg ka waran madaxweynaha ugu guuleystay Farmaajo sidoo aragta dareenkayga aad ugu faraxsanahay waan u soo dhaweynayaa waa fikirkii iyo mataqaanaayo waxay ku taamahayeen Soomaali weyn iyo maanta lagu guuleystay ilaahayna mataqaanaa ha la garab galo mas'uulkaas loo dhiibay xilka weyn oo loo dhiibay mataqaanaa in badan tartan iyo isdaba istaag iyo TV inaan fiirsano oo ilaa xalay ilaa maanta guushi mataqaanaa Soomaali weyn waa la gaaray adiga marka musharaxaysato isla doo soo baxaya aniga waxaan islahaa oon ku hanweynaa inuu Farmaajo soo baxaan rabay waxaan rajaynaynaa qaxootiga inay noogu dambayso maantayto wixii maanta ka dambeeya inaan qaxooti dambe aanan noqonin dal shisheeyana aanan jooginin guryaha iyaga aan isugu tagno ee dalka iyagi magacayga waxa la yiraahdaa Cabdixakiin Macali Maxamed waxaan ku noolahay wadanka South Africa gaar ahaan hadda waxaan maanta ku suganahay Johannesburg intaas ka bacdi dareenkayga lama soo koobi karo aad u baxsan yahay xamaasadeeda meel sare joogtaa horta marka koowaad waxaan leeyahay kiina hogaamiyo qurbaha naga wado oo wadanka naga nabad ka dhigo oo dadka gaajaysan wax ka tarin uu tara ilaahay horta Farmaajo ka dhigo waa muwaadin Soomaali ah waa musharaxiin Soomaaliyeed insha Allah taala ilaahay waxaan ka filaynaa in uu noqdo kii dalka iyo dalka sidii kale ku dhagiisa ah afacil ilaahay nooga dhigo insha Allah taala السلام يا محمد فرماجو أمبليو كسر وقلنا مثل هذا هذيك فرماجة مدحونه كقول سدون مايا يا إسلام يا إسلام مدحونه ونقدنا هيه مع كقول سواي ويلكم مقعي هو محمد عبد الله حسن وحقوهم بلينا يا مدحوينها عصب محمد عبد الله فرماجو ونادي أو فرح سنة هاي يوشا وهسوه يي waxaan kaloo u hambalyeynaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo si farxad leh isaga u tanaasulay una taageeray madaxweynaha cusub waxaan leenahay madaxweynaha Farmaajo sidoo shacabku ku taageeray ee dal iyo dibadba lagaaga banaan baxayo ina shaqadaada iyo madaxnimadaada aad uga soo baxdo weey waxa magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Mudadaal Culu Joog dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo kala salaamaya meel kasta kala joogaan dal iyo dibad kuwa gudaha jooga iyo kuwa banaanka jooga waxaan leeyahay hambalyo waxaan sugaynay maalin weyn maanta waa maalin aad u weyn oo taariikhi ah run ahaantii waa taariikhi maanta waa maalin taariikhi ah marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa mahad Ilaahay baa iskale marka labaad baarlamaanka Soomaaliya ayaan u mahadcelinayaa baarlamaanka Soomaaliya oo noqday baarlamaan taariikhi ah lana sugayay ama waxa weeyaan laga filayay taysan maanta sameeyeen way ku mahadsan yihiin Idris Sheekh Ahmed Guure telefishinka caalamiga ee Kalsan magaalada Johannesburg dalka Koonfur Afrika